24 saacadood iyo 7 dil ayaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa saaxiibayaal oo aana qabiil salka ku haya waxaana Cumar Guux hadii uu muuqaalkii soo gaarana si share gareeyo oo saaxiibadana la sii wadaaga qaybta hoose ee faaladana ugu duceeya Allah u naxariistay dhowr dhalinyaro oo qaarkood isku qoys ahaa oo nafta lagu dhaafsiiyay si micna darra ah marka la soo dhawaada saaxiibayaal deegaanada Galmudug gaar ahaan bariga gobolka Galgaduud waxa ka socda dhacdooyin fool xun oo aysan jeclaysaneyn dhagaha ummadda Soomaaliyeed sidoo kalena arki karin indhaha ummadda Soomaaliyeed taasi oo ah in habeen walba ama 12 saacadood walba halkaas ay ku dhimanayaan rag hal doorra ah oo dhalinyaro u badan aynu ku bilownay toddobaadkan gudihiisa waxa la dilay tiro ku dhow 7 qofood oo qaarkood isku qoys ah oo ka soo kala jeeda deegaano ka tirsan isla gobolka Galgaduud Xiindheere iyo Cadaado laba wiil oo isla dhalatay oo isku hooyo iyo isku aabba ah ayaa deegaan hoostaga Xiindheere hal habeen lagu dilay waxa sidoo kale jira in dhalinyaradaas ay sidoo kale ahaayeen ragga ugu firfircoon dhinaca aqoon-yahanada deegaanada maamulkaasi Galmudug si gaar ah kuwa hoostaga Xiindheere isla sidaasi oo kale deegaan kale oo isla Xiindheere hoostaga isla markaana baaldheer lagu magacaabo waxa lagu dilay wiil iyo abtigii oo iyagana la sheegay in aana qabiil halkaas nafta lagu dhaafsiiyay habeennimadii xalay ayaa xigtay oo wiil kale oo isna lagu magacaabo Cabdi Kaba Yare ayaa nafta la dhaafsiiyay oo dhiigiisa si micna darra ah lagu daadiyay waa isla Galmudug gaar ahaan bariga gobolka Galgaduud deegaanada u dhaxeeya Xiindheere iyo sidoo kale Cadaado si gaar ah Cada Kibir tuulooyinka ku teedsan isla caawa laba nin oo dhalinyaro ah ayaa la sheegay in lagu dilay oo kooxo hubeysan ay dileen dhamaantoodna waxay ku dhacayaan sabab la xiriirta qabaa'ilo dagaal ama dagaal qabiileed halkaasi ka jira oo maalmihii ugu dambeeyayna dagaaladii tooska ahaa ee ay isaga hor imaanayeen u bedelay dagaal gaadmo ah oo xiliyada habeenkii ah inta ay qoryahooda qaataan weerar ku qaadaan guryaha ay ku sugan yihiin dhalinyarada deegaanada Galmudug gaar ahaan bariga gobolka Galgaduud iyo sidoo kale Mudug intaba waxa ka taagan xiisad u dhaxaysa beelaha halkaasi wada deega qaarkood hadda waxa soo badanaya dilalka loo geysanayo dadka isku qoyska ah oo waliba xiliyada habeenkii ah la weerarayo iyadoo dilalka inta badan ay dhici jireen xiliyada habeenkii ah haddana waxa jira mararka qaarkood dilal dhaca xiliyada maalintii ah oo dadkaasi beelaha ah ay isku geysanayaan ma jiro xal rasmi ah oo laga gaaray misna xitaa heshiis hordhac ah oo beelahaasi la dhexdhigay misna looga hortagayo dhiigga micna darrada ku daadanaya ee dhalinyarada Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya ilaa iyo hadda kama aysan hadlin Galmudug sidaasi oo kale odayaasha dhaqanka beelaha dagaalka ka dhaxeeyana isla sidaasi oo kale iyagana qof walba waa uu ka aamusay dhalinyarada islaayineysana waa dhalinyaradii mustaqbalka ee berito ummadan Soomaaliyeed wax badan u tari lahayd waxaana la dilayaa rag hal doorra ah oo aqoon-yahano ah qaarkoodna ah dhaqaatiir macallimiin iyo siyaabo kala duwan deegaankaasi ugu shaqeeya miyaysan ka jirin Galmudug qorshe kale oo lagu joojinayo dhiiga raggan dhalinyarada ah ee micna darrada ku daadanaya ee waliba isku qoyska ah hooyo ayaa caawa ooynaysa oo murugoonaysa aabbo ayaa sidaasi oo kale la murugoonaya caruurtiisii nafta la dhaafsiiyay isla sidaasi oo kale caruur ayaa waalidiintooda oo hooyo iyo aabba leh caawa u ilmeynaya miyaysan ka jirin Galmudug qorshe kale oo ay kaga hortagayaan dilalka noocani oo kale ah ee ay isku dhameynayaan ummadda Soomaaliyeed maxayse ugu aamusan tahay dawladda Soomaaliya si gaar ah wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya oo mas'uuliyad gaar ah ay ka saaran tahay shacabka gudaha ee ummadda Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka noocani oo kale ah isku geysanaya waxaan idinka codsanayaa mar kale inaad muuqaalka qaybta hoose ugu duceysaan raggan dhalinyarada ah ee nafta la dhaafsiiyay ee qaarkood isku hooyada isku aabaha ah kaliya Galmudug ma ahan meelaha ay dhacdooyinka noocani ah kala ka dhacayaan waxa jira in Hirshabeelle Jubbaland iyo meelo kale ay ka dhaceen dhacdooyin fool xun oo kuwan la mid ah laakiin Galmudug maalmihii ugu dambeeyay dilalku xargaha ayay goosteen oo habeen aan wax la dilin waa ay yar tahay